السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي السلام اي الصبح ونكسن ان الصبح بيتهي لبدن جيد واتقانا بانو ملاينا ولبدا جيدا ودن كان ugu caalamisan waa xabxab iyo shamaam batiiq ma la yiraahdo mise shamaam awaab isku qaldaya shamaam qani baan ka nahay labada geedba maasha Allah tabaarakallah wadankeena si aan inaba caadi ahayn bay u yaalaan uga baxaan laakiin sidii la rabo uma isticmaalo sidii la rabay uma isticmaalo sababtu ay tahay inaga qudaarta iyo khayraadka waan haysanaa laakiin sidii loogu talagalay in loo cuno ama loo isticmaalo waxba kama dhigano labadan shay biyo badan bay leeyihiin jirka wasaqday ka saaraan biyo siiyaan kaale iska arag nafaqo qurux laakiin maalin iyo laba intaan cunaa iska dhaafnaa dadka qaar iska qara jecel way jiraan ama xabxab hadba saad u taqaan laakiin sida dadka kale oo aan beeranin oo loo soo dhoofiyaa matalan wadamadan anaga joogno waa loo soo dhoofiyaa carab iyo adduunyo iyo dhulal bay uga timaadaa jabka yar oo intaas leeg ama ka sii yar baa laga siinaya dhowr euro maxay yeelan intii sidaa u jarjaraan carabta baa laga helaa isagoo nool oo weyn intii sidaa u jarjaraan iyo supermarketyada dhigaan samarkii aad baa loo keenaa marka qorraxdu jirto wadamo kale laga keenaa carabta beerta aad iyo aad maasha Allah buu u buuxaa laakiin qaboobaha jajab yaroo bacda lagu xidhay cuntada supermarketyada la dhigo aan lacagteedaba goynayn oo hal mar bade qofkii Soomaaliga ama deeqaysa ilaa xabad weyn buu iibsan jiray baan sameynaa bad iibsanaysa marka maasha Allah lama gaaro marka hadda aniga subax bay ii tahay waxaan isku darsanayaa jabaan ka gooyo xabxabka ama qaraha iyo shamaamkaano jaba subaxii markaad cunto calooshaada jirkaaga buu la falgalaya kaale iska arag maasha Allah faa'iidada aad ka arkayso ama uu leeyahay qofkii yacnihii markaa dhadhamiya ama arka ayuunba faa'iidada ogaan karo qof kale faa'iidada ma ogaan karo marka bal faa'iidada nala ogaada nala arka aniga subaxyo badan baan cunaa subaxyada kale qudaaro kale aan ku bedelaa qudaaro kale baan ku bedeshaa subax maba haleelaba hana ordayaan baxaa haddaadan xitaa haleelin marka inaad cunto caag yar baad kusii guranaysaa maalintiiba marba laba midh marba saddex markaad baraag yar qaadata waxoogaa baad ka cunaysaa caaggaaga maanta dhan ku anfacaa caag biyaho cadna ku darso caag biyaho cadna ku darso yaaba heli karaba de markaa waa maasha Allah laakiin inaga laynagama helo haddaan Soomaali nahay qudaarta way inagu adag tahay iyo biyaha cad labadaba waa labada aan ugu liidano qofkii laakiin biyaha cad maalintii hal caag laba caag iska cabo iyo labadiisa jabo ama jab tufaaxa ama jab qaraa ama jab shamaama ama mid maxay hatta yani xabuub ha ahaato waa isku mid qudaar waa isku mid way si kala faa'iido badan tahay mooyaane waa isku mid marka waan soo jarjaraynaa dee si loo jarjaray idin tusmaayo idin bari maayo waa loo soo jarjaraya waan isu imaanaynaa insha Allah la socod wanaagsan waan soo jarjaray waa kaasa inaba caadi ma waan soo jarjaray kaale iska arag baan ka dhigay maasha Allah tabaarakallah
waa kaasaa biyo caag biyo keliya baad u qaadanaysaa. halkii intaad cunto caloosha iskaga sii gurto sii ordi lahayd koodh oo dabeedna aad waxaan ku odhi adoo haraadan aad tegi lahayd meeshii adoo jicdaha iyo dhergay oo biyo cad iyo waxaan ku odhi qudaarta isku dhex dabaalanaya baad tegaysaa. quruxda dhowr cisho keliya tijaabi, nala soo wadaag. waxa kugu filan inaad 4 cisho 3 cisho keliya tijaabiso oo aad adiga nafsadaada kaga war keento in qof kaaga sheekeeyo. marka yaan lagaaga sheekeynayna ka wardoon, soo tijaabi. waa maasha allah qofka Soomaaliga ah oo 7 cisho cuna ama 5 cisho cuno yidhaha aan ka war keeno xalaal caleeg wallah koob ku jabi. way inagu jiraan gabdho badan naftooda ka war haya, naftooda og, laakiin inteena aan waxba naftooda aan ka ogeyno qudaar iyo adduunyo iska eryanaya ayaa inagu badan. caruuro yaryar baa ina sugaaya. gaaladu waxay tiraahaa haddaadan adigu is ilaalinin yaa ilmi kuu ilaalinaya hadhowto. suurtagal maaha, waa run. ilmihii yaa kuu ilaalinaya, yaa kuu eegaya. qofka kaa naxaya kuu imaanayo la yidhaha heblaayo ilmihii ma celceshan karto oo tamarley baa haysa waayo. qurbahan qof tamar kuu haya ma leh iyo qof wax kuu celcelin kara toona. qof walba tiisiba haysata. qof walba nafta waxa geed ku xidhay hawshiisi baa ka badatay. hadduu ku jecel yahay inuu ku caawiyo maba ku caawin karabo, fursad iyo awood maba ku heli karo. saa gaalkaaban awood iyo fursad siinin qofkii. qof walba meel gaar ah iyo hawl gaar ah iyo adduunyo guuraysa buu hareeraha ka dhiga. labadan geed isma qaadanayaanoo iskuma shiido aniga, waayo si kale isku soo baxayaan. marka insha allah mar kalaan waxaan idin tusi doonaa shamaamka oo aan shiiday, qudaar kaloo qaadanaysa wax kaloo qaadanaya aan ku dhex shiiday, xabxabkoo sidoo kale. hadda asaan iyo ama jiciirba isla noqonaysa, laakiin anisaanan ku cunaa maba shiidaba. laakiin shiidninkana waa idin tusaya haddii ilaahay qadaro nafta inoo daayo. iyadoo nool inay calooshaada tagto, calooshay kaa caawinaysa iyo jidhkaba. iyadoo casiirana jidhkay raacaysaa oo qurxinaysaa. calooshana waa xoogaa, laakiin marka iyadoo nool cunto subaxii calooshay la falgalaysa sida adoo boorash cunay ama wax qabandiyo madow cunay subaxii say calooshaada samayn lahayd bay samaynaysaa. marka dee saxankan kusoo guraya quruxdeeda markaasunba quruxdeeda u dhacaysa. aan saxanka kusoo guro la socod wanaagsan. waa kaasa ani jabkaa liindhanaanta baan ku toojiyaa. qudaarta caynkan oo kalaa liindhanaanta subaxii markaad ku darto way isla falgalayaan. waxyaabaha cagaarka ah oo dhan ama qudaarta freeshka liindhanaantu way u fiican tahay. qofkii aan liindhanaanta ku jeclayn sidiisuu ku cuni karaa, sababto tahay sideeda waa lagu cuni karaa, laakiin anaa jecel inaan liindhanaanta ku daro. saa darteedaan liindhanaanta ugu darsadaa. waan ku toojiya, jabkaasa igu filan. qudaar kastoon subaxii cunayo jab liindhanaanaa la socota. waxay siisaa dhadhan, waxayna u fiican tahay jidhka maqaarka. dee dhadhanka liinta cidiisu fasiri mayso ay liindhanaanta u leedahay carabka. innagana cuntadeena ama qudaarteena carabkay ka shaqaysaa dhadhanka. qofkii wuxuu dhadhamay wuxuu leeyahay waxaan wax dhadhamaya wax fiicanba maaha oo dhadhan fiicanba male. marka dadka qaar bay ku adag tahay inay qudaartiyo sideedii cunaan. oo aan jeclayn
يا ما شاء الله تبارك الله. إنه عادي ما وحوي وح عجيبة. marka galabtii habeenkii ha cunina galabtii insha Allah bidmillaahi kariin casarka yani marka xitaa shaqada ka timaadaan marka guriga timaadaan marka casariya cunaysan waa cuni karta laakiin habeenkii maadaaba sonkor badan ku jirto ha cunina sonkor badan bay leedahay qudaartu habeenkii ma fiicna subaxii iyo maalin weynta ilaa galab iska cun ha iskuna badanin oo maalintii 2 mar 3 mar ha cunina sonkorta ay iska leedahay qudaartu baa dabiiciga ku jirta qofku markuu rabo inuu iscaayelinin way u fiican tahay inuu maalintii 1 mar cuno qaasatan shamaamkan iyo kuwa sonkorta ku badan cambaha camba babayga ama camba lafta mid walba iyo labadan shay hadda in hor yaala sonkorta ku badan marka iska yareeya hadii Ilaahay qadaro maanta fiidiyowgeenu intaas ku soo dhamaanaya qudaartan yar oo subaxii la kala hayay baan idin tusaayay marka waxaan idin leeyahay maalinta idin wacnaato si aniga igu wacan tahay like-ta iyo share-ta iyo comment fiican subscribe-ta dee waa idinka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.